Garyaqaan Cali Siciid Jaamac Gudoomiyaha Ururka Qareennada Somalilan ee gobolka Sanaag ayaa maanta ka hadlay xeerka furista urur siyaasadeedada oo maalmihii u dambeeyay muran badan ka taagnaa. Garyaqaan Cali Siciid Jaamac oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka kolley saashaad i weydiisay xeerka furista ururada siyaasadda haddaan ka jawaabo horta iminka maxaa sharcigu ka qabaa iyo maxaa sharcigu ka qabaa waxaan isleeyahay macnaba samayn mayso waayo waxaad u egtahay boqolkiiba 99 inaan haddeer sharciba loo baahnayn ay aragtiyaha kala duwan uun iskaga salaysan tahay iyo qofka aragtidiisa ama xaydaabkii laftigiisa aynu garoonka dabadiisa ku cayaarayno garoonka sharciga dabadiisa saas ay egtahay laakiin haddaanba soo ururiyo waxa la isku hayaa urur furistoodii iyo kale waxa maaha laakiin barta muranku wax weeye xeerka mashruuc sharci ay golayaasha ogolaadeen ayaa wax la isku hayaa madaxweynuhu waa soo ceshay iyo maahe waa dhaqangal oo muddadii ba ka dhacday dooduhu intaas bay ku wareegayaan waxaad in badan maqlaysay dad ku celceliyaan bas sidoo doonaya hawdhigo qodobka 77 iyo 78 bay ku celceliyaan markaan si kooban aan uga jawaabo labada qodob marka la isku soo xooriyo macnaha ay sheegayaan waxa weeye marka mashruuc sharci ama xeer ay golayaashu ogolaadeen uu madaxweynaha u tago 22 casho waa la isla waafaqsan yahay in waliba waa sheegay taamura kaba jiro in 22 casho ama ku saxiixo ama ku cesho laakiin madaxweynuhu marka xeerkaas uu tago waajibaadka uu leeyahay waa maxay weeye saddex talaabo ayuunba u furan mid waxa weeye kow inuu saxiixo oo xeer madaxweyne ku saxiixo ku dhaqan geliyo labo inuu saxiixo oo xeer madaxweyne dib ugu celiyo oo sababaysan waa laba saxiixo laba xeer madaxweyne lambarka saddexaadna waxa weeye inuu kaba aamuso iska badaayo oo sidaa muddadii kaga dhacdo haddaba isweydiintu waxa weeye madaxweyne saddex talaabo iyo uu qaaday madaxweynuhu labadii saxiix kama aamusin jawaabtan way dhacday oo way dhaqan galaysaa marka madaxweynuhu ka aamuso aanu labadii xeer midna soo saarin miduu ku ceshay iyo miduu ku dhaqan galiyay markaas ayay weeyeen in golihii soo saaray dhaqan galiyo laakiin madaxweynuhu labadii talaabo mid qaaday xeer madaxweynuhu wuxuu ku ceshay golaha ku ceshay marka lama oran karo uu ka aamusay oo agtiisu ku dhacay ilaa xeer madaxweyne soo saaray marka isma waafaqsana doodan madaxweynuhu ka aamusay oo uu dhacay iyo xeer madaxweyne oo madaxweyne soo saaray labadaas isma waafaqayaan marka muhiimaddu waxa weeye dadku inay labadan kala fahmaan haddii xeer madaxweyne uu madaxweyne dib ugu celiyay looma daliishan karo madaxweynihii labadii xeer midna soo saarin ee agtiisu ku dhacay taas looma daliishan laguma burin karo shakhsiyaad ka hadla TV-yada saxaafadda warmariya iyo xildhibaano banaanka ka hadla toona laguma burin karo marka waxa weeye dadku inay kala fahmaan madaxweyne maxeer madaxweyne soo saaray ku ceshay ma digreetu ku ceshay mise uu ka aamusay hadduu digreetu ku ceshay digreetu ku ceshay daa laga hadlo digreetu ma media ka buray digreetu maxay marka muhiimadda anigu taan waxa weeye muhiimadda in la fahmo media kama burayso ku tirikutayna kuma burayso haddii la leeyahay madaxweynuhu xeer madaxweynaha uu soo saaray madaxweynuhu warqadda uu soo saaray ma aha xilligeedii kuma soo saarin oo macno sharci ma leh hadday dad leeyihiin taasi waa dood gaar oo anigu u tegi maayo laakiin madaxweynuhu xeer madaxweyne soo saaray xeerka madaxweynuhu soo saaray waxaan kaga baxayaa ta uu wasiirada ku magacaabo haddaynu 10 shir taraad qabanno wasiirku inuu dhacaya eriyamaya ana wasiirkaasi wuxuu yahay si qaldan baa loo soo saaray uu ahaanaya wasiirkii way xeer digreeto madaxweyne ku magacaabay way marka digreeto madaxweyne ayaa horta ka horeysa xeer lambar 14 digreetadan laga hadlo waa yahay xeerkii baa yimi xeerkii marka digreetadu meel degto waxa warka xeerku meel degay taaytaas ka baxay laakiin arrinkan uu baan anigu fahmay xildhibaanadeennii aynu dooranay bulshada ka soo xulanay sida ay isugu jawaabayaan iyagoo muran sharci yaallo qola waxay leedahay
beelaha iyaga in ururo la furo u baahan ama beelaha darafyada bay qolad ka dhigayaan muranka sharci waxay kaga jawaabayaan rabitaanka beelahooda qaarna feer bay kaga jawaabayaan waxa dhan marka la isu kala waxay muuqanaysaa inaynaan qaran ahaan haddaynan sida bedelin aynaan xeer xasaasiya caqabadiisa ka gudbi karin waayo golaha qura iminka mandatekiisu dhammaystiran yahay waa golaha wakiilada caqabadaha ina hor yaallaana waxa weeye badan maya anigu siyaasad kama hadlayo totally waa taageersanay uma taageersanay taasi shaqaaniga warno tayta shaqadayda ma anigu mawduuc sharci baa ka hadla anigu ururna ma doonayo midna soo laakiin waxaan muhiimadda waxa weeye golihii ururadii oo waqti yar u haray cimrigoodii iyo madaxtooyada oo iyana waqti yar u haray iyo golihii guurtidoo kaba sii yar saddexdaas oo isla sii idlaanaya golihii qudee mandate-ka haystay shuruucda inagu kala hagi lahaa oo isagiina aynu aragno durbaab muraayadiisa inuu leyl yahay aynu aragnay xildhibaanadii wada TV-ga taagay inuu nimba wax iska leeyahay oo inay iyagu golaha isugu tagaan oo ay jaangooyaan arrinta hortaal ka baaqsaday oo dibadda shirka la isku soo qabanaya marka la isu keeno waxa muuqata halka inuu soconaa inay tahay aanta qararkeedii marka taageerada ay xaskada waxaan leeyahay xildhibaanada golaha wakiilada garta inuu masiirka dalku gacantiina ku jiro golaha mandate-ka haystaatiin qodobka 9aad meeshan waxa ka baxay qodobka 9aad ee dastuurka ayaa wuxuu ina leeyahay siyaasadda dalkeena waxa saldhig u ah tala wadaag iyo hanaanka nabadgelyada tala wadaaga iyo hanaanka xisbiyada badan intayna xisbiyada badan gaadhin tala wadaaga iyo nabadgelyadu wataan ku soo caanamaalay golaheena guurtida oo 6 sano cimrigiisu ahaa ayaa 20 sano oo dheeriya iminka inoo jooga hal article oo inay isu kordhiyaan qorayaan ma jiro tala wadaag way inoogu joogaan marka sidaas aynu ku soo noolaynay gola aan sharcigu ku korsadahayn bay noo kororsan jiray aynu tala wadaag iyo hanaanka nabadgelyada iyo jiritaankeena isugu dulqaadanaynay iminka hal qodob oo sharci ama digreetay oo madaxweyne soo saaray baa muuqata inaan ku kala baxay marka taasa ka sii weyn waxaan kaga baxayaa digreeto madaxweyne labadii digreeto mid sameeyay ee midna hadii ku dhaqan galiyo midna ku cesho ee kama aamusin hadduu ka aamuso golaha dhaqan galinayo waa run hadduu digreeto soo saaro cabdisaq khaliifna digreetada madaxweynaha keligii ma burin karo ma oran karo si kala aan dhigay oo dhinac kale aan wixiyo golaha soo qoray hadduu saar sameeyo dastuur jabin cid kale ma waxa kaga baxayaa hal lagu ekaado hal la fahmo goluhu ha fahmo golihii la doortay bulshada laga soo xulay ha fahmo mas'uuliyadda u taala hana ku xalilo golayaasha gudihiisa isagoo sharciga u maraya haddaan taasi jirina meeshaynu ku soconaa waa inta qararkeedii anigu taas ma ka baxay muhiimaddu waxa weeye in la fahmo haddeer ma taalo ururaha la furo iyo yaan la furin ishiyo noocaasi ma yaalo dadku baa suuqa iska shubanaya laakiin muhiimaddu waxa weeye hadduu madaxweynuhu digreetadiisa ku yiri xeerkani ma waafaqsana dastuurka ee dastuurka soo waafajiya madaxweynaha dabadiya oran kara dastuurku waafaqsan yahay saashtawi yaa oran kara masuuqa laga oranaya dastuurku waa waafaqsan yahay madaxweyne dadna markaas waafaqaya isagu iska waafaqaya saas miya marka muranka meesha inta weey inta muranka la jira